الأستاذ أحمد عادل سعد نيروبي ويمد إلى أن يلقى الكلام حفلة دولة القوات كتصورتي مركي قوي الصومالي لما تغنى يكفر على كسار دولة بلاد جنينة وحق قرارات جنينة ويسيو لقل كينيا إن هبين جبت جنينة حفلة يكدي عدونتو هبين دبوين يكدي عدونتو سفارة الصوماليات وسوء الشمال وذيك أنا غير كنت قالتين كل جيل وعزمتي يا جنينة مركلا المحاسين يا الأستاذ أحمد عادل إنه غير كلمة كده بسم الله الرحمن الرحيم شرف فيها إلى كسوق مناسبة وين المسؤول وين
dhaweynayo walashayda fanaanada weyn ee qaranka ee caanka ah Saada Cali Warsame oo muddo badan isla soo shaqeynay isla soo halganay kooxda waa beri ee qaranka wada ahayn iyo waxaan halkan si mudnaan ah aan asagana ugu mahadinayaa safiirka ummadda Soomaaliyeed ee Cali America ee jooga dalka Nairobi si habsamida loo soo dhaweeyay aniga gabadha walaashayda sanadaad waxaan u hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadkuuradii kowdii kontonaad ee xorriyadda oo habeendaba insha Allah tacaala ka dhixi doonta guriga safaaradda konsuliyadda iyo safiirka marka dadkiiba waxay yidhahdeen qof waliba wax walba waa in Soomaali lagu qoraa wax walba in Soomaali lagu yidhaahdaa meel walba waa in Soomaali far Soomaali marka wadaad baa jibooday masaajidku mu'adinka ahaa wuxuu joogay tuulo u dhow meelaha amxaarada laga haysanto xuduudka dhulka ogaadeynaya ayuu joogay tuulo u dhow oo xuduudka xadka abuu joogay marka wuu adimay warwaawareey warsoo baxay warso dadkiiba jooga waxay madaan xaalad inay soo gashay xataa la huwada odayga baa laysla jeeray masaajidkiisa odayga naftirkiisii baa ka qayb gala mar maxaa dhacay orodkiibu ka qayb gala mar maxaa dhacay markaasaa la yidhi masaajidka laga qayliyo ka baxay baa la dhahay kul baatiinaa salaada marka waxaan idinku salaamayaa salaada islaamka nabadgelyo naxariis korkeena horta ha ahaato aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha leh aan laga sheekayn karin jaaliyadda Soomaaliyeed safiirkeena qiimaha leh Cali America halgamaaga halganka weyn galay oo ay taariikhdu qorayso waxyaalaha uu sameeyay waajibaadkiisu gutay Axmed Naaji Sacad ustaadka macallinka abwaanka laxanka mukrijka waxgaradka weyn caqaliga ka jooga dadkii waa beri laga dambayn jiray ama wax la weydiin jiray ayuu ka joogaa aniga si gaar ah waliba waa macallinkayga madan baan loo iska soo qaadanay musulmankaasiin iyo arboosh isaga iyo waan ku qabannahay meesha lama yara fanaaniinka loo badan aad baan ugu faraxsanahay waxaan idiin sheegayaa Soomaaliyey midhaha maanta aan guranayo waa waxaan samaystay qabiilkan ka fogaaday ummadda ay islaatay wax gaar ah oo aniga ummadda igu raacday male waa Soomaalinimada ummadda Soomaaliyeed qofkii wanaag sameeya inuu midhihiisa guranayo meel kastoo ay joogaan waa wada dhalinyaro waxaa laga yaabaa inayan jirinba markii aan halgamayay qaarkood ama xabsiga aan galay Soomaaliya aan u dagaalamayay Soomaalinimada ha la ilaaliyo midnimada ha la ilaaliyo dhulkeena maqana ha loo halgamo ayaan idin leeyahay keena xorta ee maskaxda laga haysana aynu xorayno midnimo aynu muujino wadankeena aan u shaqayno Soomaaliya Academia waxaan rajaynayaa ariyadayda rumoodo waxaan rajaynayaa Soomaalo israacdo waxaan rajaynayaa ariyadayda rumoodo waxaan rajaynayaa nabadiyo raaxo waxaan rajaynayaa nabadiyo raaxo Soomaaliya israacdo
loo turin oraylka iyo dirmageedo biyo lagu rido ruuxna loo turin waxaan rajaynayaa Soomaalo israacdo waxaan rajaynayaa riyadayda rumowdo waxaan rajaynayaa